طبعا waa maqashay space wax gravity kama jiro cirbixiinadana waxay u sameeyaan waa sababtaas laakiin ta ku dhakoran waa been marka hore shay walba oo culays leh hawada ku jira waxa uu leeyahay gravity kaas oo soo jiidanaya walxaha u dhow laakiin xaqiiqda la yaabka leh ayaa waxay tahay in shay walba markii la sii fogaado uu gravity-giisa sii daciifayo laakiin marnaba uuna eber tegaynin taasoo ka dhigan ku dhawaad meel walba oo koonka ka mid ah inay leedahay gravity haba yaraatee waana sababta uu dayax dhulka ugu wareego dhulkuna qoraxda balse arrinta qosolka leh waxay tahay hadda kale ka soo qaad satellite-ka ISS wuxuu dhulka ku jiraa ku dhawaad 420 kiiloomitir waa meel dhulka aad u dhow sax haa masaafo sax xitaa ma masaafo uu dhulka gravity-giisa ku daciifi karo oo waxaa satellite-kaas saameyn ku leh ku dhawaad 90% ka mid ah dhulka gravity-giisa laakiin haddaba maxayna dhulka ugu soo dhicin una sabeeyaan sababta ah waxay ku jiraan baa dhicitaan joogto ah maxaa ka wada arrintaas haddaba kale ka soo qaad inaad buur dheer saaran tahay oo balooni si dabacsan usoo turtay baloonigaas wuxuu ku dhacayaa meel dhow haddana ka soo qaad inaad sidaas si ka xoog ma u turtay dabcan wuxuu ku dhacayaa meeshaas meel ka fog haddana waxaa ka soo qaadaa inay balooni ku turtay awood zaa'id u badan oo aad u badan oo badan waxay taa balooniga ka yeelaa inaanu weligii dhulka taaban isaga wax soo dhacayo maadaama uu dhulku wareegsan yahayna uuna ka dhaqaaqin gravity daraadiisa waa exactly waxa ku dhaca satellite-yada marka hore lagu tuuro isbiid awood badan waxaa socodkaas laga dhigaa mid dhinac ah maadaama uu wax celinaya jirinna waxa uu joogtay karaa isbiidkaas asagoo u dhacaya dhanka dhulka laakiin mar walba waayaya maadaama uu ka socdo isbiid ku filan waxaa rajeynayaa inaan wax uun ka fahnay haddii aad jeceshahay inaad nala saamayso xogahan oo kale kaal nagu soo biir